السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحلين جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهد سنتين ما أنت واحد وصدحي توانك بشة تضاد جولاي سنة كلابا كن يشان يلباتنك مقال كان واحد ربعنا لدكول وذاقو نين أفريكان أمريكانا أو ويل سوماليا هو مينيابوليس أي وذا دقنايين أحدي لصودا في مديكو ديلي لعك $5 درتيدنا وديلي أو أي كومرمين أرنتها سيدكو دعضي ninkii gacanta lagu soo dhigo hadda xiran maxaa kale uu yiri oo dadka kale ee la deganaa dhalinyarada kale ee la deganaa muxuu kaloo la damacsanaana sidoo kale waan idin la wadaagayaa sidoo kalena waxaa jira in garsoore federaal ah maalnimadii jimcaha ahayd maamulka Trump uu ka hor istaagay in ay joojiyaan howlgallada ay ku qabqabanayaan dadka brown skin ka ama latinoga ah iyagoo ku bartilmaameedsanaya luqadooda midabkooda iyo sidoo kale meelaha ay ka shaqeeyaan arintaasina sharci darro ku tilmaamay maamulka Trump arintaasi maxay uga jawaabeen waan idin la wadaagayaa sidoo kalena arintaasi balse marka hore soo dhawaad in African American oo magaciisa la yiraahdo Cesar Malik Porter oo 22 jir ah ayaa axadii la soo dhaafay oo bishan ay 6 ahayd July waxa uu magaalada Minneapolis ku dilay wiil Soomaaliya oo magaciisa la yiraahdo Cabdiraxmaan Aadan Cabdiraxmaan wiilkaasi qol ay wada deganaayeen ninkan African American ka ah luqada anaga Soomaalida in xataa markaan shaqooyinka buuxinayno ana African American aan ku qoranno maadaama dad madow aan nahay marka sida muuqata boolisku waxay sheegeen ninkan waxa uu sheegtay uu qirtay in uu midigeliyay wiilkaasi Soomaaliga laakiin arintan sidee ku dhacday maxay tahay sababta uu u dilay dhalinyarada kale ee la deganeedna muxuu la damacsanaa haddii ay isku dayi lahaayeen inay ka celiyaan markii wiilkan uu tooriyeynayay waxa uu booliska u sheegay ninkan inay nasiib lahaayeen dhalinyarada kale ee la deganaa inaysan hor istaagin markii ninkan uu midida geliyay wuxuu yiri iyagana waan raacin lahaa haddii ay hor istaagi lahaayeen marka horeba dadkan African American ka wadada aad u dhib badan in aad la degto oo haddana qol aad la degto arintaasi waa arin qatar ah waayo waxyaabo fudud ay dadka ay ku dili karaan ninkan magaciisa la yiraahdo Cesar Malik Porter oo 22 jir ah waxa uu qirtay in uu horay ugu fikiray sidoo kale inuu waxyeelayo dhalinyarada kale ee la deganaa sida uu booliska u sheegay arintaasi horay ayaanba ugu fikiro kuwan ma isdhaafisa macnaha madisha ayaan horay ugu fikiray ayuu booliska u sheegay waxa uu sidoo kalena xaqiijiyay in uu tooriyay Cabdiraxmaan Aadan Cabdiraxmaan oo midi oo madaxa oo qoorta uga dhuftay oo 25 jir ah isla markaana sidoo kalena ay ku murmeen lacag $15 ah muran ka dhashay darteed in uu mididaasi uu u geliyay kaamarooyin loo maleynayo inay aaga ka dhawaayeen ayaa waxa ay qabteen markii uu ninkan toorida gelinayay wiilkan Soomaaliga waxaana arintan ay ka dhacday apartmentiga ay kaamaradaasi ku xirneed oo Minneapolis ku taala sida boolisku ay xaqiijiyeen waxaana in meesha uu ka dhacay dilkan oo ahaa 4900 block Hiawatha Avenue axadii la soo dhaafay 5 galabnimo ayuu dhacay oo bishan ay ahayd July 6 Porter ayaa hadda xabsi ku jira waxaana Hanabin ku yaala lacagta damaanada ah ee lagu soo deyn karo waxay tahay ilaa $1 milyan oo dollarka Mareykanka ah Porter marka waxa uu wajahayaa laba dambi oo ah dil heerkoodu yahay midka labaad kadib markii uu midi uu ku dilay wiilkaasi Soomaaliga ah booliska markii loogu wacay guriga waxaan filayaa dhalinyaro kale ayaa joogtay waa isaga dhahaya haddii ay hor istaagi lahayn iyagana waan raacin lahaa iyagii ayaa booliska wacay boolisku marka isla markii ay imaadeenba waxay arkeen dhiig aad u fara badan oo darbiyada qolka fadhiga iyo waliba qaybta floorka dhiig aad u fara badan oo halkaasi ku yaala isla markiina waxay goobta ku arkeen midi afkeeda ay dhiig leedahay iyadoo oo sidoo kale albaabka hore ee guriga taala Cabdiraxmaan ayaa Allah u naxariistay markaasi ay qoorta ay uga tiilay midida sida boolisku ay sheegeen isbitaal u dhow ayaa loola cararay kadibna maadaama dhiig fara badan uu ka baxay dhaawacii ayuu u dhintay Cabdiraxmaan Allah u naxariisto Porter ayaa waxa uu qof saddexaad u sheegay intii uusan goobta ka baxsan in Cabdiraxmaan uu ka xanaajiyay macnaha waa asaga iga xanaajiyay ayuu leeyahay waxana uu sheegay in markaas kadib ay murmeen oo mididana uu ku dhuftay marqaatiyaasha sidoo kale loo maleynay dhalinyarada kale ee guriga la
deganeed inay yihiin boolisku waxay xaqiijiyeen Porter oo 21 jir ah in ninkan ay qolka ay wada deganaayeen uu midida ku dhuftay kadibna uu cararay sida kaamarooyinka ay muujinayeen goobta ka ag dhawaa oo boolisku ay markii dambe muuqaalada arkeen labada nin ayaa waxay ku murmeen lacagtaas $15 iyadoo sidoo kale la arkayay ninkan la yiraahdo Sensor Malik Porter oo dilay wiilka Soomaaliga in gacmihiisa mid kamida uu midida ku hayay markii dambena gacanta kale uu u bedelay mididii sidaasina uu ku tooriyay wiilka Soomaaliga Cabdiraxmaan ayaa waxa uu xaqiiqsaday ninkan inuu midi haystay inuu iska celiyo ayuu isku dayay laakiin isla markiiba maadaama mididu ay qoorta uga dhacday dhulka ayuu ku dhacay sidaas darteed ayaana ay dhalinyaradii la joogtay booliska ay u waceen markii intii boolisku uu soo socday ninkan wuu u badhig baxayba oo markii isbitaalka la geynayaba naf aad u badan kuma jirin boolisku waxay sidoo kale dabagal ku sameeyeen ninkay oo cararay markii uu wiilka Soomaaliga tooriyay xaafad u dhow ayna ka soo heleen markii ay qabteenna waxa uu yiri yeah you got me waa qabateen ayuu yiri marka waxa uu sidoo kale qirtay inuu isagu uu wiilkaasi tooriyay Cabdiraxmaan oo qolka isla deganaayeen horeynaba uu ugu fikrayba in uu asxaabta kale ee qolka la degan sidoo kalena uu dilo marka waxa uu yiri nasiib ayay lahaayeen markii aan toorida Cabdiraxmaan ku dhuftay macnaha ma aysan hor istaagin hadii isku dayaan inay celiyaan iyagana waan ku dari lahaa marka dhalinyaradu sida muuqata ma aysan dhaxgelin labadan nin markii ay murmayeen iyo waliba markii wiilka Soomaaliga ah midida la gelinayay markii ninkan uu baxsanayna ma aysan isku dayin inay celiyaan oo booliska ay si toos ah ula xiriireen marka waxa uu yiri hadii isku day lahaayeen inay celiyaan iyagana waan raacin lahaa oo waan tooriyay lahaa marka hadda xabsi ayuu ku jiraa lacag 1 milyan oo damaanada ayaana lagu soo dayn karaa marka in dhalinyaradan Soomaalida ah ay la degaan dad kale oo dadkan madowga ah yiraahday oo African American ka oo wadanka loogu yimid dad badan ay hadda muuqaalkii kan ka horeeyay wiilkii Soomaaliga ah ee taraaga nin kale uu ku dhuftay waxa ay commenteeda aan ka arkay anaga madow ayaan nahay madow waan nahay laakiin hadii lagu magacaabo ninkan madowga ah hadda dadkan Black African American ka hadii la yiraahdo macnaheedu waxay tahay ayagan u wada mooyaan anagu inna madownahay sidoo kale waan ogahay arintaas dad fara badan ayaa commentiye ka soo bixiyay marka inaad la degto dadkan African American ka ee wadanka loogu yimid waa halis waayo waxyaabo micno darro ah ayaa laga yaabaa inay kugu dilaan marka arintaasina dhalinyaradu ha ka digtoonaado intaas hadii arintaasi aan kaga gudbo garsoore federaal ah ayaa jimcihii maamulka Trump waxa uu ku amray in ay joojiyaan howlgallada ciidamada ICE iyo sidoo kalena ciidamada Border Patrol-ka ay ka wadaan ilaa iyo 7 degmo oo gobolka California oo magaalada Los Angeles ay ku jirto dacwadan waxaa gudbiyay toddobaadkii la soo dhaafay kooxo u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah oo xitaa ay ku jiraan dad iyaga la xiray iyo kuwa muwaadiniin Mareykan oo citizen haysta oo ciidamada ICE ay gacanta ay ku dhigeen waxaana ay garsooraha ilaa iyo soo saartay 52 bog oo ay ku leedahay maamulka Trump in ay ku bartilmaameedsadaan dadkan brownka ama latinoga luqadooda inay ku bartilmaameedsadaan midabkooda inay ku bartilmaameedsadaan iyo meesha ay ka shaqeeyaan iyagoo aan wax marmarsiyo macquul ah aan u haysanin arintaas dastuurka kuma jirto marka ilaa iyo bishii la soo dhaafay degmooyin kala duwan oo gobolka California gaar ahaan dhinaca koonfurta ah ayaa ciidamada ICE ay howlgalladan ballaaran ay ka wadeen garsoorahan federaalka waxaa lagu magacaabaa Mama Iwusi Mensah Frimpong asal ahaan waalidiinteed Gaana ayay ka soo jeedaan marka waxaa jirta amar kale oo gooni ah oo ay soo saartay ay leedahay waa in loo ogolaadaa dadka la xiray ee xabsiyada ku jira inay qareen helaan waxaa jirtay in qareen loo diiday dadkaasi bilaa warantina la iska xiray sidoo kalena waxay sheegtay in loo baahan yahay in loo ogolaado in dadka la xiray qareen u dooda inay sidoo kale ay helaan marka sidaas darteed arintan waa ku meel gaar si degdeg ah ayayna ku joojisay dacwadana waa ay sii socon doontaa marka waxay leedahay in dadkan latinoga ah oo degmooyinka dhinaca koonfurta ee California oo dadka latinoga brown skinka ay ku badan yihiin in midabkooda luqadooda iyo meelaha ay ka shaqeeyaan lagu bartilmaameedsado arintaasi dastuurka kuma jirto dad fara badan ayaa hadda waxay bilaabeen California inaysan shaqooyinkii aadin maadaama ay ka cabsanayaan in goobihii shaqada loogu yimaado isla markaana la soo qabto waxaan arkay hadda isla Khamiistii la soo dhaafay in beeraha lagu beero marwaanaha in 300 ka badan dad laga soo qabtay oo xitaa caruur yar yar ay ku jireen waxaana sidoo kale wasiirka amniga gudaha Christina Om oo ay ka xanaajisay arintan garsooraha xitaa waxay ku tilmaantay inuu eediyad yahay nin ay u maleynaysa laakiin waa haweeney waxa soo saaray amarkan oo waliba
madaxweyne Biden uu magacaabay madaxweynihii Trump ka horeeyay aqalka cad isla markiiba arrintaasi waa uu ka jawaabay waxaana sidoo kale uu yiri garsoore federaal ah wax awood u malahan in uu u yeeriyo dowladda ama dowladda dhexe in ay qaabka siyaasadeeda immigrationka ay u dhaqan gelinayso magaalooyinka howlgaladan ay ciidamada ICE ay ka wadeen waxa ay ka mid ah Montebello, Monterey, Pasadena, West Hollywood iyo sidoo kale Culver City iyo magaalada Los Angeles dhamaanba magaalooyinkaasi hadda garsoorahan waxay leedahay waa in si degdeg ah lagu joojiyaa dadka la xirayna loo ogolaada in qareen matala ay helaan waxaana ay ku tilmaantay arrintan inay tahay mid aan dastuurka ku jirin in dadkaasi midabkooda luqadooda iyo sidoo kale meelaha ay ka shaqeeyaan lagu bartilmaameedsado arrintaasina faquuq ayay ku tilmaantay aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo